doorashada degmada Boorama wuxuu u mahad celinayaa xisbiyada qaranka ee muddada inta leeg la soo shaqeeyay ee hawsha inta leeg u soo dhabar adeegay iyo musharaxiintooda waxaan kaloo u mahadnaqayaa saxaafadda oo iyadna halkan ku sugan caawa iyadoo ay tahay saacado dambe waxaan kaloo u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka ee komishiga doorashooyinka ujeedo natiijada doorashada golaha deegaanka degmada Boorama aniga oo ka duulaya qodobka 124 faqradiisa kala duwan ee xeerka guud ee doorashada iyo codbixiyaasha xeer lambar 91/2020 aniga oo maanka ku haya ahmiyadda ballaaran ee ay leedahay ku dhawaaqida doorashada golaha deegaanka degmada Boorama aniga oo tixraacaya iskuna geynaya wadarta codadka ansaxay ee degmada Boorama aniga oo garawsan daafurnaanta la xidhiidha tirinta iyo xaqiijinta codadka degmada Boorama waxaan halkan kaga dhawaaqayaa natiijada hordhaca doorashada golaha deegaanka degmada Boorama oo u dhigan sidan wadarta guud ee ka codaysa degmada Boorama waa 53,804 wadarta codadka xisbiyadu kala heleen kow xisbiga UCID wuxuu helay 10,795 xisbiga kulmiya 22,605 xisbiga wadani 20,404 waxaan kaloo halka kaga dhawaaqayaa sida uu xeerku dhigay xeer lambar 91/2020 in siday u kala horeeyeen xisbiyadu uu ugu horeeyo xisbiga UCID uu ku xiga xisbiga kulmiye uu dambeeyo xisbiga wadani waa sida uu soo saaray guddiga doorashooyinka qaranku ay soo liiska u soo kala saareen lambar 1 inagoo ku horeyna xisbiga UCID lambar 1 Ahmed Khayre Maxamuud Cilmi lambar 2 Liibaan Cali Cilmi Goode lambar 3 Cabdiraxmaan Abiib Cilmi intaasi waa xisbiga UCID lambar 2 xisbiga kulmiye Cabdilaahi Xuseen Caateeye lambar 2 Maxamed Diiriye Cabdi lambar 3 Radwaan Maxamed Cismaan lambar 4 Axmed Cali Xaddi lambar 5 Axmed Cismaan Waaberi Afgaab wadani lambar 1 Maxamed Axmed Warsame 2 Mustafa Faarax Qabiile lambar 3 Yaasiin Daheeye Cabdilaahi lambar 4 Sheekh Maxamuud Sheekh Ibraahim Maxamuud lambar 5 Yaasiin Maxamed Bulaale marka waxa toos u baxay 11 xildhibaan ayaa toos u baxay 2 xildhibaan waxay ku baxeen farakshonkaasi lambar 1 waxa ku baxay xisbiga wadani oo hal cod helo ninka la yiraahdo Yaasiin Maxamed Bulaale lambar 2 waxa ku baxay xisbiga UCID oo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Abiib Cilmi sidaas ayay ku dhantahay 13 golaha deegaanka ee degmada Boorama aad baad mahadsantihiin